kula wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijyadeena qodobada daawan doontaan waxa qayb ka ah oromada oo ku biirtay xasuuqa ay laynta dadka ama xaarada barakac hogan ayaa ka socda xadka ay wadaagaan ama xaaro iyo oromo dhanka ama xaarada xigta warar ayaa kaga nasaxbiyaal oromiya Tigray ayaa si wadajir u xasuuqay ama xaaro haddaba halkee ay ku dambeyn doontaa ama xaaro dagaalada waqooyi Itoobiya wararkii ugu dambeeyay eegay nasaxbiyaal aragtidaada barnaamijyadeena ayaad ku soo dhiiban kartaa qaybta hoose commentiga adiga oo eegaya dagaalada iyo sidoo kale in oromo ay ku soo biirto dagaalka waqooyiga Itoobiya gaar ahaan dhulka ama xaarada ay dagaal ku qaado haddaba barnaamijkeen lagsaro sheegay saxaafada kala gaarsiin ku bilowno dagaalo xooggan ayaa la soo warinayay inay ka socdaan waqooyiga Itoobiya taas oo la soo warinayo in xooga ama xaaro ka tirsan iyo sidoo kale xoog kale oo ka tirsan oromada ay dagaalamayaan taasna ay sababtay in saameyn ballaaran uu ka dhashay dagaalkaasi dad badan ayaa la dilay tiro kalena waa la dhaawacay waxaa bariga waleega ka socda dagaal culus ila wareedyo ku sugan gobolka waleega waxay sheegayaan in dagaalku u dhaxeeyo maleeshiyaad taageero ka helaya ciidanka gobolka maxarada iyo beeraleyda oromada ilaa iyo hadda 23 oromo ah ayaa ku dhintay dagaalka sida wararku ay nagu soo gaareen dadka la dilay oo 23 oromada waxa dilay ama xaaro kolkii hore ay weerar ku qaadeen maalin ka hor ay ahayd weerarkaasi waxa uu dhacay iyada oo la dilay 23 qof oo ka soo jeeda qoomiyadda oromada waxaan lagu dilay xadkay wadaagaan dhanka oromada iyo ama xaarada dhanka oromada xigta dagaalada ayaa ka socda bariga waleega gaar ahaan tuulada la yiraahdo haro oo ka tirsan degmada Kiramu ee waqooyiga Itoobiya dhacda dhanka kale warbaahinta ama xaarada dhankeedu waxay tibisay in shacabka ama xaara ah oo ka tirsan kuwa deegaanka oo gaaray ilaa 3 qof lagu dilay bariga waleega waxaana wararku ay ku eedeeyeen in maleeshiyaadka oromada dagaalku ay ka dambeeyeen si kastaba ha noqotee waxaa jira hadalhayn badan oo ku aadan dagaalkan soo cusboonaaday waqooyiga Itoobiya u dhaxay oromo iyo sidoo kale ama xaaro waxaana saameyn baan uu ku yeelan karaa nolosha dadka deegaanka waa dhanka oromada iyo sidoo kale dhanka ama xaarada xadkay wadaagaan labadan maamul ee dhankay ka wadaagaan way gobolka waleega ama xaaro iyo oromo ayaa waxay ka socotaa saasaan colaadeed oo laga dareemayo iyadoo dhinac walba u wado dadaalkii ugu dambeeyay oo meel ku saar lahaa dhinaca ka soo horjeeda ama xaaro iyo Tigray ayuu dagaalo xoogan ayaa ka dhaxay laakiin maanta sheekadu way soo dhaaftay meeshaas oo waxay maraysaa in dhinacyadu ay is dagaalamaan oo ay la dagaalamaan oromo oo ay ka talaabaan Tigray 8 qof oo hal qoys ayaa oo ka soo dajeedo ayaa maanta ku dhintay iskoorimaad kale oo ka dhacay halka la yiraahdo Kidakarimo halka la yiraahdo yaani gobolka waleega ayana ka tirsan tahay deegaanka Oromiya ayayna dhacdaa halkaas oo weerar lagu qaaday maleeshiyaadka maxarada oo Efano oo taageero ka helay ciidanka gaarka ah maxarada ayaa lagu eedeeyay inay geysteen dilalkan oo ay aarsadeen dadka la dilay ayaa dhamaantood isku qoys ah waxayna ka soo jeedaan qoomiyadda oromada qaar ka mid ah ehelka dadka la dilay ayaa sheegay in dadka maxarada iyo oromadu ay weligood nabad ku noolaayeen sida oo kalena aysan weligood la kulmin wax sidan oo kale ah mar la weydiiyay in ciidanka xoreynta Oromiya ay weerarkaasi ku soo qaadeen iyo in kale waxay sheegeen in aagaasi uu xuduud la leeyahay gobolka maxarada isla markaana aysan jirin wax jabhad ah oo soo gaaray aagaasi oo isla markaana la dagaalamay ciidamada militariga ee oromada deegaanka oromada iyo maxarada u dhaxeeya ee gobolka waleega la yiraahdo ayay ka socdaan dagaalada ugu badan waxaana ay saameyn ku yeesheen nolosha dad badan oo dadka deegaanka ah waxa la soo warinayaa in barakac hogan uu ka bilowday duleedka magaalooyinka lagu dagaalamayo iyada oo dhanka maxarada laga barakacayo sidoo kale dhanka oromada ayaa laga qaxayaa oo waxa jira dadkii oo dhan inay ka qaxayaan halkaasi haddii ay si laba jibaarmaan ee dagaaladu waxa sidoo kale suuragal ah in dadka halkaasi laga waayo gabi ahaanba ay ka qaxaan labada qowmiyadood ee oromo ama xaaro diris ay ahaayeen waqti badan sidoo kale Tigray iyo ama xaarana diris ay ahaayeen laakiin hadda waxay sheekadu u socotaa in oromo iyo ama xaaro ay ka dhax tafanayso baasha oo oromadu iyo sidoo kale ama xaaradu ay dagaalamayaan inkastoo aanu la ogaan karin halka rasmiga ah ee ay u sii jeeda baasha laakiin dagaalka hadda socdo wuxuu yahay mid saameyn ku leh nolosha dad badan oo kamid ah kuwa ama xaarada iyo oromada waayahay aan u soo laabano wararka Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Saraakiil guud oo Yuusuf Raage ayaa waxa uu maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb halkaas oo uu ka bilaabay kulamo uu la qaadanayo mas'uuliyiinta maamulka Galmudug saraakiil ciidan iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada iyo odayaasha odawa ayaa si gaar ah ula kulmay saraakiisha ciidanka qaybta 12aad kuwa horkacaya ciidamadii dhawaan laga qaaday magaalada Muqdisho ee la geeyay Dhuusamareeb sidoo kale taliyaha ciidamada xoogga dalka ayaa saraakiisha uu la kulmay ka dhageystay aragtiyo badan iyo warbixino ku aadan xaaladaha soo kordhay iyo howlgallada ka socda Galmudug
taliyaha ayaa sidoo kale booqan doona saldhigyada ciidamada si uu ugu sameeyo kormeer guud oo uu ku qiimeynayo xaaladaha ciidamada ka jira ee xeryadaasi ama ciidamada ku sugan xeryahaasi, taas oo uu u gurgelaya xaaladooda. Socdaalka Odawa ee Dhuusamareeb ayaa kusoo aadaya xilli xasaasi ah oo ay Galmudug ka taagan tahay xiisad ka dhalatay dib u soo rogaal celinta Ahlusunna wal Jameeca. Dhinaca kale, wararka ayaa sheegaya in taliyaha ciidamada xoogga dalka kadib booqashadiisa Dhuusamareeb uu aadi doono dhanka Hirshabelle, gaar ahaan magaalada Jowhar. Si kastaba, booqashada Odawa ee xarunta maamul goboleedyada ayaa salka ku haysa arrimaha ammaanka, maadaama la gudagalayo doorashooyinka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo ay militariga iyo ciidamada qeybaha kala duwan ay ku sugan yihiin deegaanada caasimadda u ah dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya. Odawa ayaa sidoo kale waxa uu qayb ka noqonayaa wadahadallo uu lala galayo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya kuwaas oo ku sugan deegaanada maamulka ee Galmudug. Halkaas waxaa laga cabsi qabaa in Odawa iyo sidoo kale saraakiishu ay bilaabaan dagaal ka dhan ah Ahlusunna wal Jameeca, maadaama xiisad badan ay ka taagan tahay waqooyiga waa deegaano ka mid ah gobolka la yiraahdo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya iyo gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaheena ama bartamaha dalkeena Soomaaliya. Haddaba lama ogo tallaabooyinka marka laga tago booqashada waa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale weli saameyn ay ku leedahay arrinta la xiriirta xaaladda dhaqaalaha iyo sidoo kale arrinta la xiriirta dagaalada Ahlusunna iyo Galmudug, taasoo aan la ogeyn ilaa iyo hadda meesha ay wax ka bilaabmi doonaan, iyadoo sidoo kale deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan Galmudug ay ka taagan yihiin saasaan colaadeed iyo hub aruursi xoogan ayay ku soo aadeysaa. Ahlusunna wal Jameeca ayaa habeen ka hor isaga baxday deegaanka Ceeller la yiraahdo oo ay si nabada kula wareegeen toddobaad ka hor. Wararka naga imaanaya ama kaga imaanaya gobolka Galgaduud waxay tilmaamayaan in habeen dhexe ama habeen hore ay ciidamadu Ahlusunna wal Jameeca ay isaga baxeen gudaha deegaanka Ceeller oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jirta magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah gobolkaasi. Ila wareed lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in ciidamada Galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda ay si nabdoon dib ula wareegeen deegaankaasi oo ay gaareen kadib markii ay faaruujiyeen ciidamada Ahlusunna wal Jameeca deegaanka Ceeller oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jirta magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah maamulka la yiraahdo Galmudug. Sidoo kale, ciidamada huwanta ayaa sidoo kale lagu wadaa ama lagu soo waramayaa inay fariisimo ka sameysanayaan duleedka deegaanka Ceeller, iyagoo halkaasi ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo cusub oo ciidan. Ma cadda sababta ay dib ugu soo gurteen ciidamada Ahlusunna oo maalmo ka hor la wareegay aagga gacan ku haynta deegaanka oo u dhow caasimadda magaalada waa caasimadda Dhuusamareeb oo caasimad u ah maamulka Galmudug la yiraahdo. Dhaqaaqyadan cusub ayaa kusoo aadaya iyada oo xaalad kacsanaan ay ka jirto lagana dareemayo magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo ay horey ula wareegeen Ahlusunna wal Jameeca laba jimcaad ka hor. Galmudug ayaa wada abaabul xoogan oo la qorsheynayo in dagaal culus lagu qaado ciidamada Ahlusunna wal Jameeca si looga saaro deegaanada maamulkaasi. Xiisadda haddan soo kortay ayaa weji kale u yeeshay xaaladda cagaran ee Galmudug oo horey dagaal ugula jirtay dagaalyahanada Al-Shabaab iyo sidoo kale xubno ay ku sheegtay degmooyin inay ku haystaan maamulkaasi. Guud ahaan saaxiibayaal, halkan ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijyadeena tan iyo qaybtan xigta. Nabadgelyo.